اوكي جزاكم الله خير. وحقاق waxaan jeclahay markaana insha Allah ta'ala inaan ku duwo wasiirka warfaafinta ee Puntland oo habeenkii jamcaha aanu la yeelanay interview ku saabsan arrintan daawasho wacan. وحقاق intuu interview aan ugu soo socdo waxaan nagala socotaa wali waa hagaag waa kana daawasho wacan. marna ma ku fakarteen ashaab ay farst aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad iyo aad qiimo u badan waxa weeyaan qofka waxaan filayaa al-shabaab doortay wuxuu doortay ummadda Soomaaliyeed inaanay noolaanin qof aan nolol la doonaynaa de qof muxuu ahaa meel wada hadal ka furan yahay maaha qofkii mabda'a ka tala baxay dambiila aan ahayn oo yani aan dadka dib u geysano mabda'a aan ka tala bixin oo qofka iskii isaga uga soo tala baxaya laakiin yani nimanka ku tala galay ummadda Soomaaliyeed inay qarxiyaan barakiciyaan yani wax garadkeeda ka dilaan aanay waxba ka hadhin wada hadal uma fura iyaga iyo dawlad laakiin shakhsi ahaan qofkii isagu iskii iskartay inuu dambaabay oo dambi alla galay ummadan dambi ka galay wixii uu galay ka toobad keenaya toobada Ilaahay waa aqbala nidaamka dawliga waa ogol yahay qofkii wuxuu qalday saxaya laakiin iyagoo isku duuban oo jameeca ah in dawladii wada hadal la gasho taasi waa waxaan dhacay weeye wasiir markii laga hadla xarakada shabaab koonfurta kale aad ay awood ugu lahaayeen uguna u joogan koonfurta Soomaaliya dawladda federaalku casharada laga barta xakamida in ay sameysay hadii la waayay shabaab isku duuban in u gacan haatiso dhalinta shabaab ee koonfurta Soomaaliya ee ka dagaalamaysa hadii ay yihiin koox dhashay gobolada waqooyiga iyo Puntland iyo hadii ay yihiin koox dhashayba koonfurta Soomaaliya dawladda Puntland ma la soo karaa marka laga reebo qoriga caaladii siyaasad ahaan wali min dajin siyaasad aad kula hadlaysaan oo si gaar ah u fiirinaysan dhalinyarada yar yar ee kan ku biiraya saacad ka dambaysa shabaab waa Yacquuba warintaasi dawladdu wax fara badan bay ka hawl gashay oo xilligii dagaalku uu buuraleeda galgala ka dhacay wax badan bay dawladdu qabaa'ilka la hadashay dadka la khalday ee aan ogeyn waxa loogu yeeray lagu hawlgeliyay bay la hadashay culimada la hadashay hase ahaatee waxaan ka hadlaynaa waxa weeye dadkani u shaqeeyaan ee maskaxda ka qabsaday ee hawlgeliyay nidaamka dawliga iyo Soomaalinimada iyo wadajirka iyo diinta Islaamka intaba ka soo horjeestay ee ku xidhan argagixisada caalamiga kuwa laga hadlayo waa kuwaas hase ahaatee muxuu ahaayay waxa jira kala duwanaansho koonfurta iyo Puntland kala duwanaansho jira nidaamka dawliga ama siyaasiga ka jira ma miirna mana shiila nidaamka dawliga ee koonfur ka jira ragii shalay ama warloodada ahaa ama al-shabaabka ku jiray way rag siyaasadda haya in badan oo kamid ah ama dawladii dhinac kaga ah ama talooyinka qaar ka go'an ama ciidamadii qaybo badan oo kamid ah hogaaminaya anaga waxa lagu ma jiraan waa dad siyaasiyiinta iyo dawladda iyo ciidamada iyo dhammaan nidaamka dawliga waa mid ka madax banaan waxyaabaha noocaas sida awgeed nidaam dawliga oo ka hirgalay dalkan baan ka hadlaymayno dad isu keenkeena oo nin al-shabaab ka soo goostay iyo nin xisbul islaam ka soo galay iyo nin ka soo galay muxuu ahaa maxaakiimtii oo intii dawlad wada noqday nin walbana mabdi'iisi haysto ka hadlaymayno taas hagaag waxa moodaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay ka go'an tahay inay la dagaalamaan ururka al-shabaab balse fikrigooda gooniga ayaga iska leh dadkuna way kala fikir duwanaan karaan waxaanu jecelnahay insha Allah ta'ala inaanu aragno mustaqbalka dhow dalka Soomaaliya oo xabad iyo qori cid haysata aan dawladda ahayn aysan jirinin bardan wa salaamana lagu wada nool yahay insha Allah ta'ala mugdigeena soo marayna aanu diiradda ku iftiimino dib dambe ugu noqonin dhig Soomaaliyeed